أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saaxiibada qiimaha qadarinta mudana yow idinkiin waxaad ka soo dhawaataan sheekadii oo la magac baxday jacaylkii kala guuray oo ay taxanaha loo hayd qaybtiisa labaad gabowshuucan. mar labaad waxayna ku tiri saaxiibey mid ayaan ku hayaa u dir adigana. waxayna ku tiri saaxiibey aboowe maalintan korkiiyo maankayga gubtooniyo maskaxdayda garaadkaygiyo adigana surano waxaan ku habeenayaa naftayda kaaga timide adigaan ku jeclahay aboowe. markii uu arkay fariinta lasoo diray hibaaq saaxiibkeedii, markii uu fariinta arkay anad aad buu ula farxay. habeenkaasi farxad bay u ahayd, mauusan saaxanin, mauusan hurdada imaanin, wuxuu u calacalayaa jacaylkiisa qaaliga ah ee hibaaq. maalin kadib waxaa laisla gaaray in la wada kulmo oo laisku arko ayaa qof walba wuxuu isku diyaariyey inuu samaysto inuu xiriir saaxiibtinimada. qof walba wuxuuna go-aansaday in ayna ku wada kulmaan magaalo ka mid ay joogaan magaalo ka mid ah. maalin kadib waxaa la gaaray in la wada kulmo, qof walba asxaabtiis ayuu soo watay. qof walba wuxuuna labada kadib xanad wuxuuna ku hormariyey saaxiibtiisa axdi baanaha lama kala wacdi lama ilaawo ruuxii ku aamina lagama intisaabto axdii balanta beenaynin abaayo buu ku yidhi. ayadana waxay ku tiri haye aboowe anigu ma beenaynayo. waxaa la gaaray maalintii kulanka, qof walba wuu soo xaadiray. waxaana la gaaray meeshii laisku soo xaadiray iyo maalin waa markii laisku yimaaday qof walba asxaabtiisa ayaa soo watay. hibaaq waxay soo watay saaxiibteeda, xanad wuxuu soo watay saaxiibkiisa ah. markii luu gaaray hibaaq ma adigi baa? haa waa aniga. xanad ma adigi baa? haa waa xanad. qof walba farxad ayuu dareemaa, laakiin waxayna ku tiri hibaaq aboowe kaama helin aniga, kaama helin aboowe. asigana xanad wuxuu ku yidhi wuu qalbi jabay, wuuna gariiray. halkiis ayuuna ka dhaqaaqi waaya xanad oona ku yidhi kaama helin intee laahay. xanad markuu wuxuu bilaabay inuu dhirbaxsi ku dhufto gabadha, inuu gacan u qaado ayuuna go-aansaday. markuu gacanta ku dhufto ayuuna ku yidhi abaayo kaama helin maxaad ka wadaa? waxayna xanad meeshiiyo xanad uuna gacan ku qaaday gabadhii hibaaq. allah waa qiso xanuun badan oo noo soo gudbiyey mid ka mid a asxaabteena. qof walba wuuna meeshii balanta waa laga kal tagay oo qof walba gurigiisa ayuu aaday. xanad wuuna aaday gurigiisa, hibaaqna waxay aaday gurigeeda. qof walba habeenuu seexan waayo, tan iyo xanadna murugo ayuu ka bixi waayo, fajac iyo wareer. asxaabta iyo qiimaha qadarinta qisadan waxay ku saabsan tahay qofka walaalka ah khiyaanin, adigana ha khiyaanin. wiilihoo walaashaada khiyaanin, gabarihey walaalkaada khiyaanin. ilan khiyaanadu waa shay xaaraan ah, ilaahina raalli kama ahan subxaanahu watacaala. asxaabta iyo dhammaanta iyo maqalka iyo muuqaalkayga aan taqaano, waxaan idinka codsanayaa inaad iska dhaaftaan khiyaanadu waa shay xaaraan ah, ilaahina raalli kama ahan khiyaanadu. walaal muslimka ah, walaashayda muslimadda ah, walaalkayga muslimka ah, ha khiyaanin walaashaada. hadday kaa codayso sawir u dir oo midka dhabtaa u dir. haddayna kaa codsanin haba u dirina iska daa. hana khiyaanin walaal, waa iga codsi walaal muslimka ah. dhammaan intii daabatay ama intii dhegaysatayba waxaan halkan ku soo afmiraynaa barnaamijkii imtixaanaha aheed oo na socday. waxaan halkan kusoo jeedinayay waa walaalkiina
وولالكينا إلى بشي ومحمد شيخ علي آدم واتمها سنتين qalkan hadaad ka heshay subscribe dheh share dheh kadibna adigoo